Hello, salam alaikum, and welcome to Automatic American English College. Kusoo dhawaada college-ka Automatic American English. College-ka ugu fiican online-ka waxbarashada. Maanta waxaan qaadanaynaa beginner lesson. Today we are learning a beginner lesson. Are you ready? Good. My name is Ahmed Seattle. I am a teacher, and welcome to the class today. I hope you have a pen and a paper. Inshallah waxaan rajaynayaa inaad qalin iyo buug aad ku qortid casharkan maanta. All right, let's get started. Today's lesson is about short phrases. Marka maanta casharku wuxuu ku saabsan yahay short phrases. Intaanad hadalka bilaabin big sentence dhaadheer waxa fiican inaad ku bilowdid short phrases amba hadalo amba jumlado gaagaaban. Okay? So phrase haddii jeer waa jumlad amba sentence aan dhamaystirnayn. Marka phrases baratid sentenceyo iyo paragraphs iyo hadallo badan ayaad u gudbi kartaa insha Allah. Casharkan imika iga dambeeya waa cashar ka mid ah casharaanta online-ka beginner lesson. Haddaad rabtid inaad online wax ku baratid insha Allah nala soo xiriir xagga WhatsApp-ka waxaad information ka heli doontaa koorsiyadayna iyo waxaan bixino iyo sidaan u dhigno insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad in badan ka faa'iidi doontid insha Allah. So, let's begin. Today we have short vowel sounds, 5 sentences, okay? Marka waxaan qaadanaynaa phraseyadan amba sentenceyadan gaagaaban sida loogu dhawaaqa, how to pronounce them. I will help you. Waan kaala caawin doonaa insha Allah. Haddii aad garanaysid qof u baahan amba luqadda imika ku cusub, insha Allah waan soo dhawaynaynaa waana caawinaynaa. Waxaan kuu hubaa haddii aad u samartid go'aan adagna qaadatid luqadda muddo yar kooban waa baran kartaa. Weliba hab online baa ku baran kartaa. Arday badan baa imika ku guulaystayba oo durba luqadda bilaabay inay ku hadlaan iyagoo berigii hore islaha kuma hadli karo waxaan way adag tahay maba baran karaba but don't give up ha isdhiibin insha Allah adigoo xaafadda jooga shaqada jooga meesha joogtidba casharaanta waa heli kartaa amba waxaad nagu soo booqan kartaa xuruntayna offline-ka insha Allah waayahay maanta waxaan qaadanaynaa shantan phrase iyo dhawaaqooda waxaa ku baranaysaa dhawaaqa sidoo kale waxaan sameynaynaa listening yar insha Allah marka dhamaystir casharkan maanta insha Allah videogan dhamaystir sidaad uga faa'iidid insha Allah waayahay aan bilaabno waxaan ku bilaabinaa dhawaaqa marka sidoo kale iga daba orada markaad iga daba tiraadin dhawaaqa waa la qabsanaysaa hadhowna wuu kuu fudaanaya waxaa arki doontaa haddii uu akhriska kugu adag yahay wuu kuu fudaan doona insha Allah markaad ku celcelisid insha Allah. Let's begin. Are you ready? Number 1, a fat cat. You get the word. A fat cat. A fat cat. A fat cat. waxaan xagan leeyahay a fat cat. badana dhawaaqa imika casriga hadii jeer tiida dambe waa laga yaabaa in laga tago. marka ha ka warwarin haddaad maqasho dad ka taga tiida. xarafka tiida way ka tagaan marmar. laakiin haddii aad in badan dhigaystid waa la qabsani. One more time. U fiirsada dhawaaqa. Pronunciation. A fat cat. A fat cat. A. Short sound. A. Waan ku baranayna. A. Cashar kale waxaan ku soo qaadanay wax la yiraahdo vowels. Iyo mid kale waxaan ku qaadanay consonants. Shaqal iyo shabane. So let's look at the vowels. A, E, I, O, U. Okay? Somali injir bi ka duwan yihiin. So let's practice. Number 1. marka la akhrinayo waxa lagu dhawaaqayaa Number 2, xarafku waa e laakiin waxa lagu dhawaaqayaa kana caloosha ka sameynaysa sanqadha kana kana amba marmar waa a. Okay? So aan ku soo celino a o u waa shanta. So kana eegno a fat cat haddaan yara micneeyana waa bisad buuran. A fat cat mala caani ka dharagtay. I don't know, maybe you drank a lot of milk. A fat cat. Okay? A fat cat. waxaan noo iman doonaa hadduu qof wax kaa weydiiyo sidee looga jawaabaa. bisada may buuran tahay waxaad doonaysaa tahay ha way buuran tahay amba waxaad doonaysaa tahay maya ma buurna maya. marka
marka sida loo yiraahdo waan u iman doonaa insha Allah horta aan dhameystiro shantan jumlado iga dabalada this one number 2 a red bed a red bed a red bed arday badan waxa dhiba waa dhawaaqa arday badanna ma sha Allah dhawaaqa way ka gudbaan waxay u baahan yihiin sida jumlada la isku xiriirsiyo kaana 10 kalan ku qaadan doona insha Allah page keena ku xiriirsano haddaanad follow garan ba haddaanad like to saari marka sida u heshid 10kii markiiba insha Allah a red bed a red bed kaasi waa kaasi waa sama red ba lagu dhawaaqa red xarafka r tana khafiif ka dhig casharaantayna online ka badana marka dhageysatid xarafkaas in badan baan ka hadalnaa waayo maxaa yeelay haddii aan Soomaali nahay xarafkaas ma yara dhiba waan yara adkeynaa waxaan ugu dhawaaqnaa a red bed ban orana hadii jeer a red bed no don't say that waxaad tahdaa a red bed red waxa weeyaan casaan marka waa sariir casaana sariir maxaya lagu jiibsado casaana amba guduuda waayahay number 3 waxaan u gudbinay imika let's go are you with me still good job all right the big pig the baan ku dhawaaqnaa the carabi ahaan kaas wuxuu noqonayaa that saasuu noqonayaa the big big ha oranin p xarafkan baa dadka marmar ay ku khaldaan kaasi waa naqas baa layla socdaa kan laakiin waa ba naqas lama socdo waa big the big pig kan baa naqaska la socdaa maqasi kan laakiin lama socdo hawadaasi naqaskaasi marka xarasa the big pig okay aan sii socdo all right xarafkan big iyo pig baa la socda na xasuuso xagga calooshu ka imanaya soundkaas amba codkaasi the big pig waayahay waan sii soconna a hot sun hot sun kelmadda sun marmar waxaa loo qori karaa sun iyo sun waa isku mid dhawaaq ahaan waxay ku kala duwan yihiin micnaha the meaning sun waa inanka dhashid sunna waxa weeyaan qoraxda amba cadceedda weeyaan so a hot sun waxa weeyaan cadceedda maxay cadceedda kulul okay the last one the big bus inkastoo you ku qoran yahay baa lagu dhawaaqaya the big bus look at the big bus it's so big wow do you ride big buses or do you ride small buses waayahay haddaba haddii wax lagaa weydiiyo sidaa uga jawaabaysa ha waa sidaa or maya waa new sidaa maaha waxaad simply isticmaalaysaa kelmadda is okay meelay ku calaamsada all right meelo socotiin waayahay haddaad doonta tahdid ha way tahay tusaale a fat cat bisada way buuranta haddaa lagu weydiiyo is the cat fat waxaad odhanaysaa yes it is yes it is yes it is yes it is waxaa ugu dhawaaqaysaana yes it is yes it is haddaani hayna oo negative yahay jawaabta waxaad odhanaysaa no it's not no it's not no it is not waxaana ugu dhawaaqaysaa no it's not no it's not no it isn't no it's not but no it is not dadka laakiin waxay ugu dhawaaqaan no it's not so let's practice and practice garayno English baan ku hadli doonaa deetan waxaa samaysaa haddii jawaabta tahay ha way tahay kande okay xaafadaada adigoo jooga isku day inaad codka kor u qaadid haddaani hayna no baa odhanaysaa okay no it's not waayahay su-aal baan ku weydiinayaa look at this phrase is the cat fat is the cat fat kee baa odhanaysaa is the cat fat I mean look at the cat it's drinking milk is the cat fat is the cat fat is the cat fat you tell me try to answer that question what do you think all right let's go to number 2 waa aragta kalabaad okay waa xasuusta micnihiina a red bed su'aal baan kaa weydiinaya okay is the bed red is the bed red is the bed blue is the bed green kee baa odhanaysaa is the bed yellow is that a red bed what do you think tell me
I would love to know the answer. Okay, number 3. Is the pig big? Is the big pig? Is the pig big? Is the pig big? Yes, it is. No, it's not. Come on. All right, number 4. A hot sun. Is the sun hot? Is the sun hot today? Hi, can you tell me about the weather? I'm looking outside and I haven't gone outside yet. Is the sun hot? Is the sun hot? Can you tell me? I don't know. Look out the window. Is the sun hot or is the sun cold today? Is it cold? Is it a cold day? I mean. Number 5, the big bus. Is the bus big? Is the bus big? Is the bus big or is the bus small? Is the bus small? Can you give me information about the bus? Is the bus big? Yes, it is, but no, it's not. Okay? MashaAllah. Aad baa mahadsantihiin sida nooga soo qayb qaateen casharka maanta. Casharkani waa cashar ka mid ah casharaanta beginnerka online-ka lagu dhigo. Inshallah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay. Haddii aad ka faa'iiday amba garanayso qof u baahan, u share garee inshallah. Haddaad u baahan tahay information ku saabsan koorsyadeennana maanta nala soo xiriir inshallah. WhatsApp-ka nagala soo xiriiri karta inshallah. Thank you so much.